haatan aan ila hadlayo galbeedka mudug jicbuur halka la yiraahdo nin xoolo dhaqata oo kasoo jeeda beesha Surre ayaa lagu dilay halka wararka qaar ayaana sheegaya dilka inay geysteen maleeshiyaad kasoo jeeda Galdogob sidoo kalena maleeshiyaadka ayaa sidoo kale dhaawacay nin hogaaminaya xaslinta ciidanka mudug hogaaminayay ayaa goobta lagu dhaawacay kadib markuu doonayay in ninka la dilay ee marxuumka uu meeshu ka qaado isaga ayaa lagu daray haatan aan ila hadlayna isagana waa dhaawac garab jicbuurna daawadal sida ogtiina bilii ugu dambeeyay ama sanadii ugu dambeeyna halkaas colaad beeladiyo ayaa ku soo noqonayay taasoo waliba xal laga waayay dilkana aad u moodid inuu si xargagoosanayay salaamullaah saaxiibayaal soo dhawaad meel ba joogtaan waxaan dul istaagi doonaa dhacdaha tan ka taagan jicbuur galbeedka mudug ayaan dul istaagi doonaa hasaatee channelka ku cusubtaa subscribe dhis maalbaad oo wararka ugu dambeeyay guudaan dalka isagoo degdeg ah fadlan hadaa ku cusubtaana gambaleelka furo muuqaalka laga dhisiina share garay oo saaxiibadaad la sii wadaag waata daawadayaal colabeedada sidaad ogtiinba gobolada Soomaaliya way ragaadiyeen isla markaasna 1990kii wixii ka dambeeyay ilaa haatan 2025 waxaad moodaa inay si xargagoosanayaan isla markaasna aan waxba laga qaban kareynin gobolada Soomaaliya ayaa maalulba marka meel hor leh colaad ay ka taagan tahay waxaadna moodaa in waxyaabaha la isku haysto iyo waxyaabo yar laakiin dagaalka markuu qarxana aad moodo inuu si weynaaniyo isla markaasna meel sare uu gaariyo dowlad goboleedyada madaxda iyo cuqaasha markaas kaaga dhow ayaa marba fargeliyay dagaaladaas si uu xalin lahaayeen laakiin waxaad moodaa in arrimahaas wax laga qaban karinin maadaama colaadda marka dambeyso ay sii saayidayso galbeedka mudug jicbuur sidaad ogtiina sanadii ugu dambeeyna halkaas waxaa ka taagneed colaadii ugu badneed isla markaana dad badan ayaa la kala dilay dagaaladan waxay noqdeen halkaa ka taaganna kuu sii xargagoosanayay oo maalin walbana halkaas waxaa lagu soo sheegayay colaad hor leh cuqaashii islaadiinta iyo dadka waxgaradkana mar walbay ku baxaan oo colaadan heshiis laga gaarana mar kalena way soo noqonaysay taasoo sababta rasmiga ka dambeysana aan la aqoon iyadoo marka dhacdooyinkaas soo noqonayeen jicbuur ku soo noqonayeen ayaa marka haatan waxa soo kortay in nin xoolo dhaqata oo kasoo jeeda beesha Surre haatan la dilay isla markaasna wararka qaarna waxay sheegayaan inay dileen maleeshiyaad kasoo jeeda Galdogob kadibna nin kale oo ciidanka xaslinta mudug hogaaminayna isagana in lagu daray oo haatan aan ila hadlayna oo yahay dhaawac garaba kadib markuu isku dayay ninka la dilay ee marxuumka xoolo dhaqatada ahaa inuu goobta ka qaado maleeshiyaadka ayaa diiday mur dheer ayaa yimid isagana waa la raaciyay oo isagoo dhaawac garabaana ayaa goobta daawada laga qaaday xaaladaas ayaa marka iminka halka ka taagan oo ninka xoolo dhaqatada lagu dilay jicbuurna waxaad moodaa marka in arrinteeda waxba laga qaban kareynin dhowr marna halkaana sida warkan ku bilaababa colaadda halka ka taagneed way soo noqonaysay mar walbana waxaad moodaa in aan la xalin kareynin dhowr mar ayaa odayaal dhinacyada kasoo kala jeeda ee isku daynay arrintaasi biyo ku shubaan laakiin waxaa caddeed in arrintaasi aan xal mar walba aan laga gaari kareynin maadaama mar walba oo dagaalka uu soo noqonayay gudaha Soomaaliya marka hab ugu badnaatay gobolada colaadaha ka taagan dhanka beeleedyada ayaa marka naftigoodu moodaa in ay noqotay arrin mar walba iska taagan aan xal laga gaari kareynin iyadoo marka madaxda iyo maamul goboleedyada halkaasi hogaaminayna ay dhowr mar isku dayeen laakiin colaadda la xiriirta beeleedyada ayaana mar walba xal loo waayay 2025 iyadoo lagu jiro oo waqti casri ah in colaad beeleed ay taagan tahay ayaa noqonaysa wax uur ku taala isla markaasna aan rooneen islaamnimada iyo isla noolaanshaha maadaama la doonayay in qawaaridta dagaalkeeda ee beeleedyada xoog geliyaan hantidooda halkaas ku bixiyaan isla markaasna wax walba caqliga islaamkan uu doonayna halka la isku geeyo laakiin taa bedelkeedu waxay noqotay in la isku soo noqdo iyaga dhexdoos dilaan qawaaridtana laga weecdo taas ayaa marka noqonaysa wax uur ku taala isla markaasna shacabka Soomaaliyeed dhagahooda iyo maqalkooda aan rooneen maadaama colaadda ay noqonayso wax laga dheerin karayo dhanka diinta iyo dhanka bilaadnimada iyo xagga wada noolaanshaha dhan walba u fiicneen iyadoo mar walba madaxweynaha qaranka iyo dhanka dowladda iyo mas'uuliyiinta cid walba mar walba ku celceliso in loo baahan yahay in dagaalka iyo xoogga iyo caqliga dhankaasi qawaaridta la isku geeyo laakiin aan la isku soo noqon dowladda ayaa mar walba ku celcelisa marka beelaha hubka haysta iyo dhaqaalaha haysta in la doonayo in enerjigooda ay xaggaasi isku geeyaan laakiin taas bedelkeedana waxay noqotay in la isku soo noqdo hadalka madaxweynaha iyo cid walba mas'uula ee waxgarada ee mar walba arrimahaas ka hadashana aan warkooda aan waxba laga soo qaadin waata daawade maxaa kaaga baxa marka haatan aan kula hadlayo nin xoolo dhaqata oo jicbuur lagu dilay maxaa kaaga baxay colaadda haata taagan ee mar walba soo noqoto beelaha u dhaxaysana maxaa lagu xalin karayaa aragtaas ugu leedahay marka channelka ku cusubtaa subscribe dheh siina share garay